maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Ila Ducaale iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay kalfadhigii xilka lagaga qaadayay maayir ku-xigeenka degmada Caynaba oo maalintii shalay ahayd ka qabsoomay xarunta dawladda hoose degmada Caynaba anigoo ah xildhibaan Xasan Dhabaasi oo misana ah sharciyaqaanka golaha deegaanka degmada Caynaba waxaan halkan ku cadaynayaa wixii shalay meesha ka dhacay inay sharci darro ahayd maayirku wuxuu ku guul daraystay samaynta xeer hoosaadkii golaha ee na kala hagi lahaa ee ay waajibiyeen qodobada 54 55 56 57 ee xeer hoose ee xeer 23 isbaara 2002 sidaas awgeed ma jirto xeer hoosaad golahu leeyahay oo wada saxeexay mana jiro xeer kale oo qaran oo aanu jebinay waayahay kaasi waa qodobka labaad ma jirto xasaanad ka qaadka ay sheegeen maxkamad sharciga oo loo maray iyo xukun ciqaabeed oo nagu dhacay midna ma jiro xilka qaadista maayir ku-xigeenka xubinta iyo xildhibaan kale oo isagana xasaanada laga qaadayo waxaanu cadaynaynaa oo aanu sheegaynaa arrintaas inayna ahayn arrin sharci ah wax alaalay wax ka jira inay jirin sifada xilka qaadistuna dee qofka xilka waa laga qaadi karaa sharci weeye laakiin process bay leedahay haba yaraatee inaan processka loo soo marin sababtoo ah xeerka gobollada iyo degmooyinka ee jamhuuriyadda somalilan waxa uu dhigayaa qodobka 66aad farqadiisa labaad ma jirto ogolaansho xilka qaadis oo ka yimi wasaaradda arrimaha gudaha waayo kalfadhiga waa la sii dejiyaa kalfadhigan cadan waa la dejiyaa arrintaa wasaaradda loo gudbiyaa marka xildhibaanuhu saxeexaan wasaaraddu waa soo ogolaataa arrintaasi ma dhicin lama gudbin waa qodobka labaad sida uu dhigayo qodobka 66aad farqadiisa shanaad xilka qaadista waxa ay ku ansaxdaa saddex meelood golaha waxaan intaa ku darayaa maayirkii golaha deegaanka ee axmed qani oo ku guul daraystay sharciyaddii uu golaha ku hagi lahaa isagoo kala garan waayey tii qaladka iyo tii saxda ahayd buu hadba dhinacuu doono ula cararayaa qodobkan waxaan leedahay horta marka hore ma jiro xildhibaan iyo guddoomiye xil laga qaaday midna ma jiro guddoomiye ku-xigeen waxaa Nuur Ila Ducaale oo ah guddoomiye ku-xigeen xasan yuusuf aadanna waa xubintiisii xildhibaannimo buu leeyahay isagoo ka jawaabaya sheekadii shalayto ka dhacday halkan Caynabo golaha deegaanka meesha tan waxaan xukuumadda u sheegaynaa dadku haddii uu isqabto ama caqliba ku kala baxaa ama sharciba ku kala baxaa caqli lagu kala bixi waa golaha deegaanka ku kala bixi waa oo uu ishayaa si xun buu isu hayaa xukuumadna idinkaa u ah haddii caqli lagu kala bixi waayo ina sharci lagu kala baxo waajib ageesta kale maayir ku-xigeenka degmada Caynaba Nuur Ila Ducaale ayaa dhankiisa sheegay inaanay jirin wax xilka qaadisa oo loo maray sifo sharciga waafaqsan halkan waxaanu ku fadhinaa 5 xildhibaan oo golaha deegaanka aniga iyo 4 xildhibaan oo golaha deegaanka ayaanu ku fadhinaa baryahanba waxa socotay xoogaa fawdaa oo ay maayirka iyo gruuba wataa ka wadeen ay gobolka ka wadeen iyo degmada gudaheeda sidaa ogeydeen shalayto waxay sameeyeen arrin fawdaa aan wax sharci waafaqsanayn oo ay leeyihiin waxaanu ku doorannay intay dowladdii hoose furteen maayir iyo maayir ku-xigeen iyadoo aan wax sharci oo loo hayaa aanay jirin iyo wax koorama iyo wax ogolaansho midna loo hayaa aanay jirin kana been abuureen isagoo weliba xoghayaa fulintu ee dowladda hoose ee wasiirka arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha matelaya u jooga uu ka been abuurayo in 9 xildhibaan fadhiday arrinkaas baanu inaanu ka jawaabno aanu doonaynaa halkan waxaanu ku fadhinaa 5 xildhibaan waxa weeyaan 4 xildhibaan iyo aniga oo guddoomiye ku-xigeenka degmada ah waa Muuse Cabdi Caarshe Xasan Yuusuf Aadan xildhibaan Mustafa Aadan Maxamed xildhibaan Cali Maxamuud Aadan iyo aniga oo Nuur Ila Ducaale guddoomiye ku-xigeenka 5taasaan ku fadhinaa
waa cabdiraxmaan faysal famle telefishinka caalamiga ee Eriya TV magaalada Caynaba xarunta gobolka Sare.